ما شاء الله إلهي نوعدك أمنينا الله نوعدك halkaan baan usoo istaagnay madaxda qaranka oo madaxweynaha jamhuuriyadda ugu horeeyana halkaan ayuu kaga soo hambaliyaynayaa guddoonkii gobolka guddoomiyihii ugu horeeya idiin soo hambaliyaynaaya marka waxaa idin leenahay hambali ayaa idin leenahay ilmahaas ha loo daneeyo ilmahaas siyaasiyiinay ilmahaas ha loo daneeyo ilaahay ka baqa ha ku qancin xilalka ama tallada waxbarasho oo soo sheega wax ka sameeya ha ku qancin inaad macallin waxbaro noqotid ardada oo dalka maaragtay jiilalka soo saara inaad injineer noqotid inaad dhakhtar noqotid inaad bayood noqotid inaad sargaal noqotid qaybaha kala duwan oo nolosha oo waxbarashada inaad kulligii noqotid ku dadaala hadduu ilaah yidhaahdo waxaan rabaa inaad markaa mahadceliyo agaasinka waxbarashada ee maamulka gobolka Banaadir ilaahay ha ammaanayaa lehe idinkana ammaanka adkeeya oo muxuu ahaayo heshiiya siyaasiyiinay hala heshiiya ardaydaas ha loo daneeyo dagaal yaa laga dhex kicin wixii wanaagsan ku shaqeeya maasha allah ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله hooyadii loo sameeyo adeeg lacag la'aan ah oo ayaa ku dhashay isbitaalka Forlini tan iyo markii dib loo howlgeliyay qaybta hooyada iyo dhallaanka ee isbitaalkaasi ما شاء الله والدلالة maxamed cabdi ile ayaa warkaasi inoo diyaariyay ما شاء الله hooyada iyo dhallaanka la dadaalaya ما شاء الله sida maybe yaris soo dhawow ilaahay wadankaada nabad iyo barwaaqo allah kaaga dhigo ilaahay idinkiisa hooyada nabad ku noolaato ilmaha nabad ku noolaadaan allah nagu kaso ما شاء الله lagu dadaalo dhallaanka iyo hooyooyinka lagu dadaalo halkan ugu dhashay wiil noqonaya kii ugu horeeyey ee isbitaalka Forlini ku dhashay dib u howlgelintiisa kadib hooyo Faac ayaa tan iyo bilowgii uurkeeda waxay ku xirnayd qaybta hooyada iyo dhallaanka ee isbitaalka maamulka dhaqaatiirta iyo wadada kale ee isbitaalka ayaana farxad ما شاء الله iyada iyo cunugeeda yarba soo barbaar hooyo allah ku caafiyo kadib markii dhawaan la xarin jiray qaybta hooyada iyo dhallaanka ee isbitaalka dadweynaha Forlini ayaa waxaa ballaarin lagu furan laniin adeegyada kala duwan ee qaybta loo xilsaaran tahay ما شاء الله ما شاء الله lagu adeegayo bulshada
dhakhaatiirta isbitaal qurux waxaa u badan. dhamaystiran dhakhaatiirta qalabka daawada iyo dhammaan adeegyada kale ee muhiimka u ah bukaanada. Saacadiin Raga Free oo ah hooyada dhashay haweeneyda isbitaalka ku umushay ayaa ka mahadcelisay adeegyada gabadheeda loo qabtay. isbitaalkaana waxaa dhiminay nagtayda Maasha Allah. ayaa ku umushay ilaaha noo fududeeyey maamulka iyo si fiican ay noo soo dhaweeyeen waa si free ah oo lacag la'aan ayaa noogula soo adeegay Maasha. maamulka iyo si fiican baa joogto ilaah baa ku mahadsan ilaahayna waa iisoo kalaamusho ilaah baana mahad iskale Umulisadii dhalisay madaxa caafimaadka, madaxa shaqada iyo shaqaalaha iyo Maya maasha Allah maasha Allah. Hadday firiin ku dhalaya. isbitaalka Furlini Nabadan Allah noo adkay siyaasiyiin heshiya dhexdiina kursi aan la raadinin hal la raadiyo sidee wadanka ku nabadgeli lahaa. soo hooyadaas waxay nagu xirnay xilliga ee daryeelka antenatal care-ka ee xilliga uurka leh alxamdulilah daryeel fiican iyo talin badan markii la sii kadib wuxuu ilaah qadaray inay xalay si dabiici noogu dhasho cunuguna uu nabad qabay hooyadan waxaa lagu magacaabaa Ifraax Xasan Cabdulle oo degan degmada Kaaraan Maasha Allah. gaar ahaan Sanca da'deedu waa 23 jir waana cunugeedii labaad maasha Allah alxamdulilah Maasha Allah maasha Allah. iyo cunugu caafimaad qabo waxaa dadweynaha Soomaaliyeed ee ku dhaqan Muqdisho iyo hareeraheeda aan weydiinayna in isbitaalka Maxamed Furlini Public Hospital oo shaqayn doono maalin iyo habeen adeegiisuna uu yahay adeeg free ah in maaragtay maxaa dhahdaay si toos ah Maasha Allah. ay maaragtay maxaa dhahdaay adeegaas ay usoo doonan karaan sidoo kale degmooyinka ku hareeraysan isbitaalka iyagana waxaan leenahay maaragtay maxaa dhahdaay habeen iyo maalin ayuu idiin furaya isbitaalka marka maadaama ay hadda xalay bilaabatay hawshii oo adeeg u horeeyay positive noqday oo Maasha Allah. muddo kadib Ilaah wadanka nabad nooga dhig yaa Allah. Ilaah dagaal naga haa. Dadku waa iska dhib qaba iska jilicsan yihiin Ilaah. waa adeeg ilaahay amarkiisa Heshiis Ilaahay idankiisa heshiis Allah ka soo saaro. aniguna aan rajeynaya inuu isbitaalka adeegaas uu kusoo noqdo isbitaal general noqdo oo dowladda Siyaasiyiintan Ilaah heshiis ka soo saaro dhexdooda. Ilaahay idankiisa. sida Kaaraan iyo Yaaqshi iyo Shibis iyo meelahan degan inay ka faa'iidaystaan qaybtaan iyo qaybo kaloo jira oo lacag la'aan ay ka mid tahay qaybta oo tiibishada qaybta nafaqeynta ilmaha iyo qaybtan dhallaanka oo iyagoo dhan lacag la'aan ah oo daawo ka helayaan in ay qaybtan iyo isbitaalka badankiisba uu dib u soo noqdo waxaa mas-uul ka ah wasiirkeena wasaaradda caafimaadka Cali Xaaji iyo waxaa aad u mahadsan oo qayb weyn oo firfircoon ka qaatay agaasimaheena guud Mr. Maxamed Jacfar Cali Ashraf marka soo dhawaada ugu dambeyn agaasimaha isbitaalka Furlini Maasha Allah. Jacfar Cali ayaa sheegay in ka maamul ahaan ay dadaal geliyeen tayeynta adeegyada qaybta hooyada iyo dhallaanka Bravo. Maasha Allah. Dadaala isku tashta. Shacabka oo isku tashta. Ilaahay idankiisa dowladiinana iyo daryeelkiisa iyo Ilaahay ha nooga dhigo kuwa ictiqaadsan nabadda iyo naxariista. uurka qaaday maamo Soomaaliyeed oo ka timid degmo ka mid ah degmooyinka gobolka Banaadir oo ah degmada Kaaraan oo xaaladeeda caafimaad ay la socdeen mihnadayaasha caafimaadka ka shaqeeya isbitaalka oo xalay ugu dambeyn ku umushay isbitaalka dadweynaha ilaa Salinti waxaa ummadda Soomaaliyeed u sheegayaa in la furay horeyna loo daafuray loona xali jiray qaybtii hooyada iyo dhallaanka oo ay ka heli karaan adeeg bulsho oo dhammaystiran oo qaybihiisa kala duwan Maasha Allah. oo qalabaysan oo maxay aheeday ka shaqeeyaan Oo free ah. dadaal caafimaad oo loo carbiyey inay u adeegaan bulshada hooyadaas Soomaaliyeed waxay ka mid tahay hooyooyinka Soomaaliyeed ku xirnaa isbitaalka tan iyo markii xaaladeeda kasoo bilaabmaysay ilaa cunuga oo ka calool galay ilaa ay ka dhasho Maasha Allah. Maxamed Idil Universal TV